qisas fara badan oo arintan la xiriira markay waxaasi dhacaan inuu qofkii shoog qaado ama aad u naxo laba nin baa sheekaysatay oo odayaal ah oo Soomaaliya waayaha adduunka laga sheekaystay in baa wuxuu warniyo waliga masiibo ma kugu dhacdo markaasuu yiri ha waabay masiibo igu dhacdo suu yiri maxaa kugu dhacay niyo waxa igu dhacay buu yiri wiilkayga curad oo kaligiisii ahaa baa inta bahal qaniinay biga dhinta marka masiibadaas waa igu dhacday kii kala wuxuu yiri aniga waligay masiibo iguma dhicine waabay cirib isaarta masiibo aniga iguma dhicin laakiin mar bay cirib isaarta suu yiri oo maxaa kugu dhacay suu wuxuu yiri laba reer baan lahaa dhowr iyo 20 ilmoodna waa lahaa 200 iyo 300 oo geela waa lahaa ari ku neef gaariyana waa lahaa laba xaasna way joogtay maalinkii dambaan ka safra habeenkii baan ka dhaxay salaadii subaxii waagu markuu bariyay adoo nus saac meelahaas baan reerku meeshu deganaa ku soo beegma roob baa habeenkii daay marka waxaan imid buu yiri reerkii oo dhan oo xalay inta wariq ku dhacday hal qof oo nool iyo hal neef oo xoolaay nool amsa ku jiray dhowr iyo 20 ilmood labadii xaas geeli arigii awrtii xataa dhimateen marka wuxuu yiri waxaan isku dayay xoolihii iyo saas u jiifaan qoortay waxay ku hayaan macaashir dhulka ku wada hayaan inaan midba balkiciyo wax nool inay ku jiraan saan ugu wareegay hal rati ah oo rarooy ah oo geed ku xirnaa baa ii kacay buu yiri oo dhagih mid xalad dilaaceen qaraxii meesha ka dhacay baash xoolihii halkaas neef markuu aan rabo inuu ka noolsaa meydkii tiriyebiya dadkii baan fiirshay dadkii oo dhan waa meyd laakiin waxaan waayay biyo labadii xaas mid kamid ah oo uur lahayd oo 9 bilood ahayd baan waayay buu yiri raadna mal roob baaday meelaha marmaray meelmaha marmaray markii dhamaan weymid biyo ayuu geed hoosti ku soo xusan waa fiirshay gabadhi way nooshahay ma dhiman ayadu way soo xusan tahay ratigii baan soo kaxaystay reeriyaan soo saartay gabadhi baan u keenay wuxuu yiri waa ku rara gabadhi baan inta u sameeyay meel aan oo darga camal ah baan saaray ratigii baan la dhaqaaqay waana 9keedii baa gabadha go'ay maalinkood dhan baan wadaa buu yiri ratigii waa iska mabanayo maskaxdaydu xataa caadi uma joogto goor casar iyo duhur dhexdooda hoos 8 saac iyo bar meelahaas baan wabiga ku imid buu yiri wabi meel maraan ku imid ayr baan inta gabadhina fool ba qabatay kaligay baana saaka xataa markaan soo baxay kama fakarin buu yiri gabadhan amay kugu foolataayo wax sakiin iyo midna ma wato wuxuu yiri mar alla markii gabadhii fooshi qabatay ratigii baan ka dajiyay wiil bay dhashay laakiin nasiib darro waxaan xudunta kaga gooyay mala geed baan inta fuulay bi xaleef ka soo goostay bi xaleefkan kaga jaray xudunta waa nolol laga yaabo inay aad u adag tahay laakiin ninka ka sheekeynay waa nin caad u sheekeynay asagu waa ninka le balaaya ay saartay cirib ee aniga iguma dhicin waligeed balaayo wuxuu yiri markay gabadhii u mushay waxana afkana uma siin gabadhan waa wareersantahay iyadoo dhanba nooc kale ay tahay waa gabadha xalay wariiqdu ku dhacdo dadkii hore dadkii oo dhan ka dhinteen waxaan afka u gasho cunta ma hayo ratigi baan bireeyay ayr baratiga neefka geela waxa ku jira kuruskiisa cad la yiri cad iska bisil oo bisayla la dhaho cadkii baan uga jeexay kuruska afkaan u gashay markaas indhaha kala qaaday gabadhi markay fiicnaatay xoogaa indhihii kala qaaday oo cadkii cuntay baan iribu iyo ratigaan noo qalayay ila meesha ma jiro umul baan ahay cisbitaal baan 3 bilood ku jiray waxaas ma leh 3 bari ku jiray wixii ma leh baan iribu yiri orado nooga soo dhaamay ratiga intaan sii qalayo inta qaadatay jeegan wabiga dar gabadhi mar alla markay istir wabiga aad u taabsiisi jeerigaankii baalkii jeegi yaxaas baa ku dhuftay markaas aan waxaan arkay jeegiyo cirka u duulay waa soo orday la tagi marka wiilkii raabaan ku soo laabtay hilib male marka qalitaan waa u dhamaatay qofku awalba hilibka u qaliyay gabadhay ahayd asagu nololba kuma jirin wixii ilmaha yar baan iska qaatay dharkii aan qabo dhanna waa u jeexjeexay ilmihii asagu ku duduuban yahay saan u orday waxaan soo baxay qorraxdu sii dhacayso ari meel daaqaya wiilkii yaraa oo aan watay oo aan asna nafu ku jirin ila hooyadina ma nuugin noloshu waa nolol aan caadi ahayn baan ridii ugu horeysay oo irmaan afka u gashay buu yiri mar alla markaan saa afka ugu gashay wuuna qaawan yahay asagu ilmaha yarka wuxuu haystay maradu ku duuduubay ilmuhu ku duuduuba baan waxaan ku warhelay bahal ulaho igu dhagtay kor baan u fiirshay mise gabar inaan ay uleynayso waxay tir balaayada reer argi dhex degtay maxaa way saas markaan u istaagay oo ay yartay inaan qaawanahay bayse siidays way carar 5 daqiiqo kadib waa kuwan odayaal dhan oo orniman dhan oo xoog leh wada ordayo seefo iyo waramo iyo wato gabadha u qayla geyso tir balaaya ariga ku dhaxarka qofkii ugu horeeyo aan arkay sadogay buu ahaa buu yiri oo gabadhii maanta la iga cunay dhalay arintii baan uga sheekay waa la kaxeeyay horta odayga baa maray saaray bi low ninkuu qaawaya go'ay buu saaray bas waa la kaxeeyay wuxuu yiri guriga baa la geeyay oo gabadhii la dhalatay bi uleysay
wada adagi markuu cunto ay siyaasado ila hadlay inta tagay yu sheekh iyo niman soo kaxeeyo gabadhi waa leegu meeriyo habeenkiiba aqal baa leegeeyay hadeer buu yiri ninkan markuu u sheekaynayo dhowr iyo 20 ilmood iyo xoolo malaayiin aan leeyahay marka waligay dhibaatay uma dhacin laakiin maalinkaas cirib saartay